muuqaalo ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada oo muujinaya howlgal ciidamada dowladda Mareykanka ay ka fulinayaan mid ka mid ah dhulka buuraleyda iyadoo inta badan dadka muuqaalada baahiyana ay ku andacoonayeen in ciidamada dowladda Mareykanka ay gudaha ay u galeen dalka Iiraan xilli ay sii kordhayso xiisadda militari ee gobolka ka socota. mid ka mid ah muuqaalada waxay muujinayaan gudaha diyaarad qumaati u kacda oo nooca Black Hawk loo yaqaano oo sida la arki karayo ay ka muuqanaya laba ka mid ah ciidamada dowladda Mareykanka xilli ay dul mareysay meel buura ah oo qallalan dhagxaantuna aad ay ugu badan yihiin. muuqaalkaas wuxuu aad u qabsaday barta Twitter-ka waxaana lagu sheegay inuu muujinayo isu diyaarin ciidamada Mareykanka isku diyaarinayeen howlgal dhanka dhulka ah. laakiin markii baaritaano dheer la sameeyay kadib waxa la ogaaday muuqaalkan iyo Iiraan inaanay shaqo isku lahayn. muuqaalkan waxa la daabacay bishii November sanadkii 2025 waxaana uu la xiriiray howlgal dhanka hawada iyo tababar ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Mareykanka ay sameynayeen. dhinaca kale muuqaalkan waxa la baahiyay muuqaal kale oo muujinaya ciidamada dowladda Mareykanka xilli ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan xilli ay boorsadoodii iyo agabkii military ay wateen iyagoo waliba dhanka dhulka howlgal sameynaya. marka waxa laga dhigay inay diyaaradda ka soo daateen kadibna ay dhulka u daateen gudaha dalka Iiraan. waxaa la sheegay isagana muuqaalkaasi inuu yahay mid been abuur ah oo xilli hore ah waana muuqaal la duubay xilli ciidamada Mareykanka ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan. hase yeeshee markii baaritaano la sameeyay kadib waxa la xaqiijiyay muuqaalkaasi isagana inuu yahay mid duuga waxaana nuqulka muuqaalka la helay oo muujinaya ciidamada dowladda Mareykanka xilli ay ku sugnaayeen dalka Pakistan muuqaalkaasi in la duubay gaar ahaan deegaanada dhinaca xadka. maxaa yeelay qaybta dambe ee muuqaalka waxaa laga jaray caruur ciyaarta cricketka loo yaqaan ciyaaraysa oo dalkaasi Pakistan si weyn looga ciyaaro. sidoo kale waxaa si weyn u baahay muuqaalka askari dumar ah oo Amerikaan ah oo sheegtay inay ku sugan tahay gudaha dalka Iiraan iyadoo ooyeysa oo ay leedahay waxaan u xiisay gurigayga iyo qoyskayga laakiin waan sii joogi doonaa halkan oo waxaan u joogayaa si aan dalkayga iyo dadkayga aan u difaaco. muuqaalkaas marka 2 milyan oo daawasho in ka badan ayuu gaaray muddo saacada gudaheeda. laakiin markii baaritaano la sameeyay kadib waxaa la ogaaday muuqaalkaas isagana inuu yahay mid aan shaqo ku lahayn howlgal dhanka dhulka oo ka dhacaya gudaha dalka Iiraan laguna sameeyay AI-da ama nidaamka caqliga macmalka taasoo ku muujinaysa in maalmahan aad ay u sii xoogeysanayaan dagaalka dhanka AI-da ah dagaalkan barbar socdo. maxaa yeelay maskixiyan dagaalkan ayuu ka qayb qaadanayaa howlgaladan iyo muuqaalada iyo waxyaabaha la baahinayo. sidaa daraadeed marka waxaa la yidhi dhammaan muuqaaladaasi waa kuwa been abuura waxaana ay yihiin kuwo la doonayo in lagu marin habaabiyo dadweynaha. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah.